مسنا بدرادا جدلي درادا بديدو تاوم بان باشال كديداي إداي بلداي إداي بلدا تامبرون daawadayaal halkan waa isgooska ceelgaabta ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waa goobta ugu mashquulka badan xiliyada qaadka lagu iibiyo iminkaas aad u jeedaan goobtu waa mid aad u cidla ah isla markaana aysan jirin cid wax ku iibinaysa hadda waxa loogu jiraa diyaar garow ku aadan sidii hadhow qaadka lagu iibin lahaa goobtan 6 saac markii la gaaro goobtan ayaa waxay noqonaysaa mid aad xamaasad iyo mashquul u badan saacada iminku waa 3:35 daqiiqo xilliga magaalada Muqdisho 6 saac xiliyada jaadku uu soo dego markii la gaaro goobtan waxa ay noqonaysaa mid aad u mashquul u badan isla markaana ay dad aad u far badan ay soo buux dhaafinayaan maxamed cabdi cumar oo loo yaqaan bidaare waxa uu ka mid yahay dhalinyarada timaada halkan maalin walba waxa uu ka hadlayaa xilliga uu halkan yimaado iyo waxa uu qabto sidoo kale waxa uu sharaxayaa isbedelka ku imaanaya goobtan marka uu qaadka soo dego aniga maxamed cabdi cumar oo ku magac dheer bidaare oo ka faahfaahloonay suuqa qaadka haddeer waa u jeedaan cidlo weeye hadhow markoo qaadka soo dhacan waxay arkaysaan qaadkii dadkii iyo qaadkii in ay dadkii la waayaba oo qaadka tiro badnaado marka maxay ku dhacday Soomaaliland inay saas ay u badato ayaan iska rabaa Soomaali haddaan nahay anaga inay noocaas ay noo qabato haddeer waa cidlo waa u wada jeedaan gabigeennaba 6 saac marka la gaarane waxay arkaysaa maaragtay meesha bulsho ah marka walaalay Soomaaliyeed inay wax iska qabtaan ayaan meesha ayaan ka shaqeeyaa miis ayaan ku leeyahay siyaar ayaan gadaa goormadan shaqadan waxaan bilaabay 6 sano ka hor ilaa haddaan ku jiraa sharax bal jawiga marka hadsan uu yahay hadhow markii jaadku soo dego waa isbedela jib nooc kale ayuu naqanayaa jin ma la socotaa leedahay mas'is isma ma qowas waa jin ayaan u maleynayaa markuu qaadka soo dhacdo أنا داقة محمد نور جواب دقبل حمر ويلي جاره إن كبر كله فراشايو بس لين مركو جاد ما له هرت دبيلا تور مقالة وأردايان عوس كسوق على برك عوس كيرا كتب جاو قال جاد كسوقات لين كسوق على تيا هولكو إيسان ورقة إلهيان برك تبى جلالي دبل وحب الأركان ورتبوق وحواس دعاء فإلي وجرا له فإلي ساي oo la kala ordayo wax dhacayo qofka oo jira marka goorma shaqada bilowday waxaan waxa bilaabay sababkiisa bilaabay ilaa hadda taaglay subaxda goorma imaan subaxii waxay maalaha hal saac ay maalaha 6 saac ka waroo furaashaad qaadkii soo dhaco markaas qaad soo qaalo waa keeraa haddaba xaaladda sidaan ma sii ahaan doonto 4 saac kadib ila socda daawadayaal sidaad u jeedaan xaaladda saakay sidaad ku daawateen iyo hadda sida ay tahay farqi weyn ayaa u dhaxeeya sidaad u jeedaan goobtu waa mid aad u mashquul badan isla markaana ka duwan sidii saakay taasina waxa keenaysa xilligan oo kale marka uu qaadka soo dago mashquulkan waa lagu yaqaanaa goobtan waxaana dadku ay u dareeraan in ay aadaan goobaha lagu iibinayo qaadka iminka sidaad maqlaysaan waxaa dhacaysa rasaas taasoo ka dhigan in xamaasad iyo farxad ay ka tahay ninkan aad u jeedaan magaciisa wuxuu iigu sheegay Jeneraal Yaxaas marqaanka ayaa tusay in uu cod macaan leeyahay isla markaana uu heesi karo marka uu qaadka soo degay ayuu hees u qaaday qaadka waxay ka mid tahay waxyaabaha iga yaabiyay inta aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan مسنا بدرادا جدلي درادا بديدو تاوم بان باشال كديداي إداي بلدا تامبرون تيرين مانغرون أديكو بدرادا جنانو درادا بديدو بربر بان باشال كديداي dadka qaarkood cunida qaadku waa wax caadi ah oo waqtiga la isku dhaafiyo waxay ku raaxaystaan inay si halkaasi waqti ula qaataan saaxiibadooda marka ay cunayaan qaadka hase yeeshee isticmaalka qaadku wuxuu dadka qaarkiis u keeni karaa dhibaatooyin sida daroogooyinka kale isticmaalka xad dhaafka ah ee qaadka
waxay qofka u keeni kartaa dhibaatooyin xagga caafimaadka iyo ladnaanta maskaxda iyo sidoo kale saameynta ay ku leedahay dadka kale ee la nool sida qoyska. Qaadku wuxuu qofku ka dhigaa mid feejigan oo firfircoon, hase yeeshee wuxuu kaloo keeni karaa dhibaatooyin badan oo caafimaad iyo hurdo la'aan iyo sidoo kale dareenka maskaxda oo aad u kacsan. Caagaan yaryarka aad u jeedaan ee ay ku jirto shaaha iyo sokorta waxa ay qayb ka tahay qayilka, iyadoona dadka qayilaya ay u isticmaalaan cunista qaadka, waxaana iibiya haween iyadoona qiimihiisu ay tahay 7,000 ama 8,000 shilinka Soomaaliga. Qaadku sidoo kale waxa uu dhibaato ba'an ku hayaa qoyska iyo lamaanaha, waxa uuna ka qayb qaataa burburka qoyska iyadoona lamaane aad u fara badan ay ku kala tageen qaadka dartiisa. Mawlid Xaaji Cabdi, Telefishinka Horyaal, magaalada Muqdisho.